asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan kusoo dhow kanaalkeena youtube-ka ali s online oo idiin soo diyaari anigoo ah cali maxamed ismaaciil baashi. had iyo jeer kanaalkan waxaa ugu barateen inaan idinkugu soo gudbino barnaamijyo lagu baranayo markaas teknolojiyadda, dhiirigelinta ama personal development. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aa ula socotaan taageerada iyo engagementiga aad samaysaan. insha allah videoga maanta aan idinla wadaagi doono wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo google calendar. ka hor intaan videogan maanta gudagalin waxaa jeclaan lahayn inaad nagu taageertaan subscribe, like iyo share ilaa ay dhammaadka videoga haddii aad sii daawan doonin fadlan like-ta sii taabo waa free. dhinacina waxay inoo tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarin videoyaal kaloo aad iyo aad u tay fiican. okay, si fahamka google calendar ee noogu sahlanaato waxaa isku day doonaa inaan u kala qaybino qeybo yaryar ilaa 6 qeybood inaan kusoo koobno isticmaalka google calendar. ugu horeyn waxaa u baahan tahay inaad lahaato gmail account. haddii aadan gmail account lahayn video ayaa kasoo sameynay sida loo sameysto gmail. okay, markaa gmailkaada soo samaysta kadib waxaa sameyn doontaa ama waxaa gali doontaa google accountkaada ayaa galaysaa. gmailka aad samaystay ayaa kusoo galaysaa. markaa soo gasha kadib qeybtaas sare 9kaas dhibac isdul saaran ayaa taabanaysaa. kadib waxaa ka raadinaysaa calendar. sidaas waa ku imaan kartaa calendar. markaa taabato wuxuu geynaa markaas google calendarkaada. si kale waa u imaan kartaa oo waxaa taabanaysaa qeybta url-ka kor ayaa waxaa ku qoraysaa calendar.google.com. kadib okay ayaa taabanaysaa wuxuu keenaa marka calendarkaada. ugu horeyn google calendar wax kale ma ahan, waa software online oo markaas google inoogu talagaleen si aan ugu maareyno waqtigeena, ha ahaat inaan u isticmaaleyno shaqada, waxbarashada ama nolol maalmeedkeena. marka ugu horeysa aad soo gasho google calendar waxaa kuusoo muuqanaya pagekan. wuxuu ka kooban yahay qeybo badan. waxaa isku day doonaa inaan mid kasta marka hore dulmaro, kadib ayaa kusoo laaban doonaa mid kasta iyo howshuu qabto iyo sida loo isticmaalo. okay, ugu horeyn markaa soo gasho waxaa kaasoo muuqan qeybta sare calendar. today markaa taariikhda joogto maalinkaas ayuu kuu sheegaa Wednesday August 18 waa maanta. qeybtan waa ka arkaysaa maalinkay tahay waa August, bishaa joogto 2021. isbuuca waa 33aad. qeybtan sare waxaa sii arkaysaa search haddii aad rabto waqtiyada ama ballamaha kala duwan aad leedahay ama dadkaa la leedahay meeshas ayaa laga raadiyaa. waa kusoo laaban doonaa. qeybtanka waa settingka. qeybtan waxaa ku shaqo leh week ama sidaa u arkaysid viewga pageka kuu daaran markaas ayaa laga doorta meeshaas. hadda week ayaa ii dooran, month, year, schedule waxaasoo dhan waa ka dooran kartaa. qeybtan kale oo bidix waxaa ka aragtaa bishii oo dhan oo lasoo koobay ayaa lagu keenay meeshan oo hadda waxaa joogan August. haddii aan rabo bisha ku xigta inaan fiiriyo calaamadaas midigta ayaa taabanaya. September, October ilaa intaa raba ayaa usii gudbi karaa. qeybta sarena sidoo kale pagekan ii soo muuqda haddii aan rabo inaa isbuuca ku xiga aan fiiriyo maadaama hadda isbuuc ii dooran tahay. waxaa tagaya marka klik ayaa ku siinaya isbuuca ku xiga waxay dhici lahaa oo dhan meeshan ayaa lagu soo koobaya. ilaa meesha rabta ayaa usii wadi kartaa. haddii aad rabto inaad kusoo laabato pageka maanta waxay tahay waxaad taabanaysaa kaliya today. okay, sidoo kale markaa qeybo kala tagto ama November oo kale 30 November markaad doorto u fiirso qeybtan waxaa la keenay 30 November. okay, inta waa ka dooran karaa ama qeybtan waa ka socon karaa. haddii aad rabo maanta inaad kusoo laabto today ayaa taabanaya. okay, qeybtan waxaa ujeednaa badhankaas create markaa rabto event ama ballan inaad qorato ama maaragtay activity ama task meeshas ayaa laga sameeyaa. waa kusoo laaban doonaa sida task ama event loo sameeyo. qeybtan hoose waxaa aragnaa dadka kugu jiro markaas ama dadka wada shaqaysaan, ha ahaada familka ama shaqada ama waxbarashada dadka wadaagtaan. meeshas ayaa ka raadin kartaa si aad ballamo ula samaysato ama ballamaha la hedeen meeshas ayaa laga raadiyaa. meeshana waxaa kaaga soo muuqanaya calendar, my calendar. calendarka adiga aad leedahay meeshan ayuu kaga soo muuqanaya. way badan karaan, sidaan way ka badan karaan ama way ka yaraan karaan. sida loogu soo daro iyo sida looga tirtiro ayadana waa kusoo qaadan doonaa. qeybta hoose waxaa ujeednaa other calendars, kalendarada kale oo nationalka sida holidays in Norway. haddii aad rabo waa kusoo darsan karaa ama waa ka saari karaa. inaad kusoo darsato waxaa go-aamiya boxkaas ayaa calaamadeynaysa oo kaliya wuu kugu soo darsamaya. hadda u fiirsa markaa calaamadeeyey waxaa la keenay Crown Prince Metemerit Day. haddaa rabo waa saari karaa. waa xafladaha Norway ama waddankaa joogto markaas. okay, task hadda way ii daaran tahay. haddaa ka saaro way bixaysaa. haddaa doorto way soo gelaysaa. haddii aan rabo my calendar in aan soo gaabiyo qaanadiisa calaamadaas ayaa taabanaya.
way xirmaysaa, way ii furmaysaa. Okay, sidoo kale other calendar sidaas ayay u furi kartaa. Okay, hadda markan qaybtaana waxaa ka aragnaa waxyaabo kala duwan. Waa eventyaal markaas dhici rabo, maalinkay joogto calaamad ayaa lagu siinaya 18 August Wednesday. Maalinkay taagantahay calaamad buluug ayaa lagu saaraya, ama kalarka rabto waa ka dooran kartaa, laakiin highlight ayaa lagu saar markaas. Okay, xariiqintaasna waxay sheegaysaa saacadda aan markaas marisid. Dhinacan bidix ayaa ka arkaysaa 6 saac ilaa 7 saac ayaa u dhexeynaa, oo saacaddu waxay taagan tahay haddadana video duubayo 6 saac iyo bar, ama 12 iyo bar ayay maraysaa. Inta ayaa ka arkaysaa markaas. Okay, ugu horeyn waxaa isku dayi doonaa in aan soo gelino event cusub, ama waxaa rabnaa inaan ballan sameeyo, ama tusaale ahaan beri ayaa dhakhtar leeyahay, ilaahay may u keen maaragtay xanuun ama qof kale ayaa dhakhtar u baahan, ama ballan ayaa leedahay iskuulka ama meel kale ama shaqada. Waxaad tegaysaa create. 2 qaab waa u samayn kartaa, dabcan 3 qaab waa u samayn kartaa. Kow, haddii aan rabo inaan event cusub sameeyo ama ballan cusub, hal mar kilig waa ku siin karaa. waxaa la siiyey qaanad yar oo markaas qeyb ciwaan leh, event, task, qeybahaas kala duwan ayaa leedahay. ma u baahni. waxaa ka fiican oo markasta ka fiican in aa maaragtay 2 mar click ku siiso, double click. markaa double click ku siiso, page dhan ayaa lagu siinayaa oo qaanadii yareed oo lagu weyneeyey, oo wax kasta markaas si waadix ama nadiif ay kugu muuqdaan. haddii aan ku celiyo u fiirso, double click ayaa ku siinayaa. hal click haddaa ku siiyo, qaanad yar ayaa la siinayaa. double click haddaa ku siiyo, qaanad weyn ayaa la siinaya. markaas waa ka laabanaya. markaas si kale waa usoo gelin karaa, oo create ayaa taabanaya. create, qaanad yar ayaa la siiyey. Okay, haddaa iska yaro create, qaanad yar marka la siiyo, more options, waxaa lii keenay pagekii oo dhammaystiran. Okay, saa rabta usoo gal, laakiin badanaa ani waxaa sameeyaa, sida ugu fiican u sameeya waxay tahay 2 mar ayaa click ku siiyaa. 2 mar markaa click ku siiyo, pagekii oo dhan ayaa lii keenay. Okay, marka horeyso waxaa isku dayi doonaa in aan sameyno event. eventiga muxuu ku saabsan yahay? waa ballan muhiim. ballan aan muhiim ahayn yaa horta marka hore kalendarka gelinaya. ballan muhiim oo waxay ku saabsan tahay imtixaan. imtixaan ayaa leedahayba. ballanta waa imtixaanka inaa imaataa. Okay, goormaa galaysaa? qaybtaas sare ayaa markaas ka dooranaysaa. click markaa ku siiso, maalinkaa rabto ayaa ka raadin kartaa. waxaa leeyahay 25, ama kasoo qaad jimcada ayaa leeyahay 20. Okay, saacadda markay tahay click ayaa ku siinaysaa. saacadaha kala duwan meeshaas ayaa ka dooranaysaa, ama haddaa rabto toos waa ugu qori kartaa. waxaa leeyahay 14 ilaa iyo waxaa leeyahay u fiirsa, markaad dooratid 1 saac ayaa markaas lagu daray, laakiin u baahnin ilaa iyo barka 30 daqiiqadood ay noqonaysaa. Okay, waa 20 August. laga bilaabo 20 August ilaa iyo 20 August waa dhihi karaa. haddii aan rabo maalin kale waa dooran karaa, oo waxaa dhihi karaa ilaa iyo Isniinta. waa maalmo badan ayay soconaysaa, laakiin u baahni. waxaa rabaa 30 daqiiqo kaliya. qaybtan ku xigto waa time zone, wadankaad joogto iyo timekiisa. aan hadda Norway ayaa joogaa. waxa ay dooran Oslo time. inaa ka bedel ma rabo. haddii adiga waddan kale joogtid, meeshaas ayaa ka dooran kartaa. Okay, hadda cancel naga dheh. haddii maaragtay eventiga dhacaya markaas, haddii ay tahay xaflad subaxii ilaa ay galabkay soconayso, ama habeenkii oo dhan, maalinkii oo dhan, all day ayaa markaas dooranaysaa. all day markaad doorato, waa kusoo laaban doonaa sida u muuqan doonto marka all day taabato, ama markaa ka doorato does not repeat, daily mea, weekly mea soo gashaa oo jimcadii ah, monthly, third Friday, annually, sanadkii may soo gashaa August 20keeda, ama every weekday ay soo gashaa, maalin kasto Isniin ilaa iyo Jimco. ana hadda isbuuci wuxuu isbuuc maalmaha isbuuca waxay maaragtay Monday ilaa Friday, Isniin ilaa Jimco ayaa ii taagan isbuuca maalmihiisa. haddaa rabto waa ka bedeli kartaa, Sabti Axad waa kusoo darsan kartaa, ama waa ka saari kartaa. haddii aad rabto waqti kuu gooniya, meeshaas ayaa tagaysaa custom. Okay, waxaa rabaa repeat every week, isbuuc kasta 1 mar ama 2 mar igu soo celi. waxaa rabaa Arbacadii iyo Jimcadii, tusaale ahaan never, kabacdi iyo igu soo laaban waa dhihi kartaa. ama waxaa dhihi kartaa on, in ay ka bilaabato 19 beri ah, ama waxaa dhihi kartaa after 13 mar markay ballantan soo laalaabato, kabacdi iga dhammaystir. ama waxaa dhihi kartaa never, haba iga tirtirin, oo
sanadaha soo socdo dhan arbaca iyo jimco kasto ha ii maaragtay soo muuqato isbuuciiba 2 mar. labada marna waa arbaco iyo jimco. kadib waxaa dhihi karaa done. Okay, markaa saas u gelisay location waa meesha intee waa home miya ama shaqada miya. Office ka dhigo office. haddii aad rabto meesha rabtaa ka dhiganaysaa office ka dhigo. wax kale ku daran haddaad rabto ka soco. notification maxaa rabtaa in lagu soo diro email 30 daqiiqo ka hor miyaa rabtaa 10 daqiiqo ka hor miyaa rabtaa. meeshaas ay ka bedelaysaa marka 10 daqiiqo ayaa ugu fiican in laga dhigo. inta badan haddii aad 10 daqiiqo ka badan ka dhigato waxaa laga yaabaa markii eventigu markii soo dhawaato inaaba ilowda ayaa laga yaabaa. minute miyaa ku rabtaa mise hours mise days. 10 minute ka hor kalendarka la gelinayo magaciisa waa Cali Baashi. kalendar kala duwan waa lahaan kartaa. sida loogu soo daro kalendarna waa kusoo laaban doonaa insha allah. kadib calaamad ayaa siinaysaa oo kalarkaa rabtid buluug nooga dhig. okay, marka timekan buuxisay waxaa ka dhigi kartaa busy. maalinka saacadahaas inta maaragtay 8 saac ilaa 8 saac bar ama 14 ilaa 14 barkii busy ayaa ahay. qof kale waqtigaas ballan u qaban kartid oo waqtigaas wuu xiran yahay. okay, yaa tusaysaa marka public haddaa ka dhigtid qof kasta oo maaragtay googlaha ku qoro ballan muhiim imtixaan kalendarkaada u arki karaa. private haddaa ka dhigatid adigoo kaliya ay arkaysid. default ayaa lagu dayaa. qofkaa rabtid aa la share garan karta markaas. maanta waxaan okay, waxaa rabtaa ku dari kartaa haddaa rabto file waa kusoo dari kartaa attachment haddii aa online ku haysato ama computerkaada uu kugu jiro. waxaasoo dhan meesha ay kasoo gelin kartaa. okay, intaan save taaban qaybtan waxaa kusoo dari kartaa qof kale oo markaas gmailkiisa haysato ama kugu jiro contact list ama dadka gmailka isku haystaan ku jiro ayaa markaas magaciisa meeshaas gelinaysaa. waa la wadaagi kartaa qofkaasna. ballantan way usoo dhacaysaa markaas haddii ahaan lahayd inaa invitation aa u dirtay sida zoom call oo kale waxyaabahaas oo kale kalendarkaaga waa la wadaagi kartaa. okay, qofka aa u dirtay modify ma samayn karaa. eventiga wax ma ka bedeli karaa waa u ogolaan kartaa. qof kale ma casumi karaa waa u ogolaan kartaa. ama ma arki karaa dadka aa casumtay ayadana waa u ogolaan kartaa. haddii aad rabto kulli waa ka saari kartaa oo qofkaas wax meesha ka dhacay ma ogaan doono ilaa la gaaro maalinkaas. haddii aad rabto waxaa ka dhigi kartaa inuu arko dadka imaanayo asigana dad kale inuu casumo. haddii uu rabo qof haddii uu yahay oo co-host ama qof kula diyaarinayo xafladda ama ballantan asigana waa kusoo dari kartaa. can modify waa dhigi kartaa hoosha wuxuu ka bedeli karaa. okay, u fiirso kan u koray markaad doorato xafladda ama eventiga wuxuu ka bedeli karaa qofkaas aa la wadaagtay. kuwan kale way ka tirtirmayaan sababtoo ah automatically wuu arki karaa wax markaas dadka soo qayb galaya xafladda. okay, hadda inaga saar ma baahnin. kadib waxaa taabanaynaa save. okay, haddii maaragtay find time waa dhigi kartaa. waqti waa u fiirin kartaa oo waqtiyadaada muhiimka ama waqtiyada firaaqada tahay laga soo bilaabo 6dii waa arkaysaa 1 ilaa 8 firaaqa ayaa ahay. okay, 6dii wixii ka dambeeyay firaaqa ahay saas waa samayn kartaa. laakiin u baahni eventiga sideeda hanoo ahaato. save. okay, waa save garey. meeshaas ay kasoo muuqanaysaa ballan muhiim imtixaan. u fiirso qalad yar ayaa si ula kac u sameeyey. qaladkaasna haddii aad rabo inaad saxo tusaale ahaan imtixaankan waxaa ka dhigay inuu soo laabto isbuucii 2 mar. okay, imtixaan isbuuc kasta la galaya muxuu yahay maadada midaas. haddii aad rabo inaad saxo oo ku laabto click ayaa hal mar siinayaa. kadib qalinka ayaa dooranayaa. okay, waa ku bedeli kartaa. haddii aad rabto waa tirtiri kartaa iyadoo dhan ama qof waa la wadaagi kartaa. guest waa u dari kartaa. more option haddii aad rabtid qaybtaasna waa sii furi kartaa. print ayaa samaynaysaa. haddii aad rabto duplicate waa ka dhigi kartaa koobigeeda ama copy my test calendar waa ku koobiyin kartaa. waa kalendaro kala duwan intay iga muuqdaan my calendar test aniga duplicate ka dhigay. haddii aad rabto publish event waa dhigi kartaa soo shaac bixi. change owner qofka iska leh ballantan waa bedeli karaa haddii aniga ku qoran hadda qofka iska leh. u fiirso qof kale meeshaas ayuu ka muuqdaa. change owner haddaa taabto qof kale ayaa ku qori karaa markaas. okay, hadda waxaa rabaa inaa bedelo waqtiyada ballantan ay soo galayso sababtoo ah waa imtixaan isbuuc kasta ma dhici karto. waxaa ka dhigaynaa oo keliya does not repeat ayaa ka dhigaynaa. wax soo laalaabto ma ahan waqtigaas oo keliya inagu okay.
imtixaanka sanadka dambe ayuu imaan doonaa. Markii la gaaro ayaa asigana calendar ku dari doonaa. Okay, kadib save markaa taabto. Intaan save taaban ka hor waxaa taaban karaa more options. Sida kii hore ayaa inoo soo baxay, ma u baahnin. Kadib waxaa teganaa save. Okay, hadda wuu inoo maaragtay update ayaa ku samaysmay. Taasina waxay ahayd sida loo soo geliyo event. Okay, haddii aad rabto inaad samayso task waxay u muuqdaan sida kuwaan oo kale. Shalay oo kale 17 bisha taskyaashan ayaa lahaa. Haddii aad rabto maanta task inaad sameeyo, tusaale ahaan create ayaa taabanaya, task ayaa ka dooranaya. Waxaa leeyahay record a video. Okay, YouTube video samee. waxaa taabanaya my task maa ku daraysaa. Okay, meeshaas ay qoran. Haddii aad rabto taariikhda intaa ka dooranaysaa. Waxay bilaabanayso taariikhda waqtiga ay bilaabanayso meeshaas ay ka dooranaysaa. Kadib save ayaa taabanaya. Ujeeda meesha ay soo gashay. Haddii aad rabto mid kale inaad sameeyo ama kan inaad qaado naftigiisa meel kale waa geyn karaa. Click ayaa ku siinaya. Maalin kale waa u qaadi karaa. Okay, meesha rabo waa u gudbin karaa. Saacadda automatic ay isku bedelaysaa. U fiirso. Maanta waa keeni karaa. Cancel naga dheh midkan. Maanta waa soo jeedi kartaa. Haddii aad rabo kuwii shalay waa soo qaadi karaa. Maanta waa soo dhigi karaa. Haddii howlihii shalay aan qaban weli ay ii dhiman yihiin, inta ayaa soo dhigin karaa. Okay, sidaasna maaragtay maanta waxaa qaban lahayd task meeshan ayay kaaga soo muuqan doonaan. Alright, taasna waxay ahayd sida loo soo geliyo task. Markan waxaa isku day doonaa in aan calendar cusub sameyno. Hadda waxaa samaysan Cali Baashi birthdays, dhalashooyinka dadka asxaabteeda dhalashooyinka leh way soo muuqan doonaan. My test calendar. Haddii aad rabo inaad calendaryada qaarkood iska saaro, calaamadaas ayaa ka taabanaysaa unsubscribe. Click ayaa siinaysaa. Ma hubta ayaa lagu leeyahay remove calendar. Sidoo kale dhibcahaas waa taaban kartaa. Markaad taabato colorka waa ka bedeli kartaa calendarka. Waxaa rabta ka samayn kartaa meeshan hide from the list. Listiga meeshan waa ka saari karnaa. Setting and sharing waa ku soo laaban doonaa midaas. Hadda ma u baahnayn waxaa teganaa cancel ama remove calendar waa iska saarnay. Alright, hadda waxaa u baahanahay calendar cusub inaan ku soo daro oo maaragtay YouTube-ka kanaalkan oo kale. Markaa rabo calendar cusub inaan u sameeyo, plus ayaa taabanaya. Subscribe to a calendar waa taaban karaa. Qof kale calendarkiisa haddii aad tahay xaas odaygaad rabti calendarkiisa inaad soo qaadato asla ogaataan waqtiga, ama haddaad tahay odayga guriga aad rabto xaaskaada calendarkeeda inaad soo qaadato maadaama ay shaqeyso, waa ka soo qaadan kartaa. Ama iskuulka calendarkiisa ama shaqada subscribe baa ku noqon kartaa. Linkiga ayaa u baahantaa keliya. Hadda waxaa sameynaynaa marka calendar cusub, create a calendar. Okay, create a calendar. meeshaas ayuu kaaga soo muuqanaa. Calendarka muxuu yahay? My YouTube. haddii aad rabo waa samaysan karaa. YouTube cashara. Okay, YouTube casharada online ayaa ku qoray. Okay, saacadda waxaa waaye Oslo GMT. Ownerka waa aniga. Haddii aad rabo create hadda dhaho wuu samaysmayaa. Okay, intaan samayn ka hor waxaa ujeedaa qaybtan bidix from URL. haddii aad rabo linka kale waa ka soo qaadan karaa. Import export waa soo gelin karaa, waana la wadaagi karaa qof kale. intaan sii gaarin meeshaas marka hore waxaa taabanaya create. marka sidaas create u taabto waxaa lii gudbinaya marka qaybtii hore wuxuu soo galaya my YouTube. ujeedaa meeshaas calaamadaas flartas back inaga dhehda wuxuu soo galay my YouTube. haddii aad rabo farta colorkaas waa ka bedeli karaa sababtoo YouTube badanaa waxaa lagu yaqaanaa guduud. Okay, my YouTube. Okay, hadda haddii u baahdo event cusub tusaale ahaan inaad sameeyo, double click markaa ku siiyo waxaa la weydiinayaa calendarka ah ku keydin doono. waxaa ka dhigi karaa my YouTube ama Cali Baashi. u fiirso my YouTube leh lesson 1 cashirka koowaad aad samayn doono ayaa maaragtay meeshaas geli. Okay, calendarku yahayna waxaa kuu sheegaya waa colorka wato, ama waxaa samayn kartaa click ayaa ku siin kartaa. waa arkaysaa lesson 1 waxaa iska leh my YouTube created by Cali Baashi. waqtiga iyo taariikhda meeshaas ay ka arkaysaa. Okay, hadda waxaa sameynay calendar cusub. maadaama hadda sameynay calendar cusub oo YouTube-ka, waxaa isku day doonaa in aan la wadaagno asxaabta igala shaqeeya tusaale ahaan YouTube kanaalkan.
waa haddii aan rabo inaan linkiga iyo fiidiyoyaasha casharada waqtiyada soo dhigdhigay inay arkaan, waxaa sameynaya ama share la sameeyo, ha ahaato dad kula shaqeeya ama familka haddii aad rabto inaad la wadaagto, ama ardayda fasal kula dhigto haddii calendar niga dhexeeyo, meeshas ayaa kala wadaagi kartaa. setting and sharing ayaa tagaysaa, kadib hoos ayaa ula dhacaysaa add people, ama waxaa ka dooran kartaa share with specific people ayaa dooranaysaa, kadib meeshas ayaa ku daraysaa. Okay, markaa ku dartid waxaa haystaa 3 option. qaanadan qaybta u sareysa waxaa gelinaysaa emailka qofka aad rabto inaad la wadaagto, kabacdi waxaa kasii dooranaysaa meeshan qofka ma fiirin kara oo kaliya see only free, inuu fiiriyo oo kaliya oo waxba uu ka bedelin, ama waxaa dhigi kartaa see all event details, eventiga wax kastoo isku dhacaya iyo taariikhaha iyo wax ku qoran detailka inuu arko. make changes, inuu wax ka bedeli karo. make change and manage sharing, inuu dadka la sii wadaagi karo oo asigana wax ka bedeli karo. intooda kee u ogoshahay, waa permission midkay siinaysaa. haddii aad u kalsoon tahay ama qof oo howsha qayb weyn ka qaban hadduu yahay, waa u wada ogolaan kartaa permission, kulli waa siin kartaa. haddii aad rabto inuu fiiriyo kaliya familka oo kale, haddii aad rabto inaad la wadaagto qaarkood shaqadaada kalendarkiisa ay wax kaa bedelin, meeshas kore ayaa u taabanaysaa markaas. Okay, kadibna aad ayaa taabanaysaa. taasina waxay ahayd sida kalendarka qofka loogu sheer gareeyo marka kalendar cusub samaysid. haddii aan usoo laabano qaybtan sare ee Google Calendar, waxaa aragnaa searchna waxaa laga raadiyaa eventyada kala duwan ama taskyaasha oo maaragtay maalmaha kala duwan ama taariikhaha kala duwan kugu jiro, sida loo raadiyo haddii ay kaa dhumaan ama ay kaa dhexyaacaan, ama haddii aad rabto qoraallo ku dhex jiro ama link inaad kasoo dhex raadsato, inta ayaa qoraysaa. tusaalahan waxaan rabaa lesson 1 oo maalinka 18 bisha inaan soo saaro, meeshas ayaa klik ku siinaya, kadib waxaan qoraa lesson 1. klik markaa ku siiyo waa liishay August ayaa lahaa 18 August, saacadahaas haddii aan rabo gudaha usii gali karaa, klik ayaa ku siinaya oo waa lisiyey. Okay, haddii aan rabo waa soo qaadan karaa oo maalin ku xiga waa u gudbin karaa oo waxaa ka dhigi karaa 19 iga dhig. Okay, kadibna waxaa leeyahay save. Alright, back u fiirso lessonkii maalin kale ayay maaragtay isku dhaceen. haddii aan rabo qaladkaas inaan saxo, klik ayaa ku siinaya, meesha rabo ayaa gudbinaya ama waqtiga firaaqada ayaa ku aadinaya markaas. Okay, haddii u fiirso waqtiga ay isla egyihiin, tusaale ahaan midkan isku waqti ayay dhacayaan, haddii ay isla egyihiin tusaale ahaan u fiirso oo labada calendar ay isla egyihiin. Okay, half iyo half ayay noqonayaan. haddii mid uu yar yahay, kan yar ayaa soo dul maraya markasta. hadduu midka weyn ayaa soo kor maraya markasta, u fiirso hoos maraya. kii yar hoos ayaa la adinaya. inuu weyn yahay inuu yar yahayna waxaa go'aamiya saacadaha markaas lagu programiyey. Okay, lesson 1 qaybtan saragii tusaale ahaan. Okay, maalinkaas way anficaysaa oo waqtigaas wax ahaa malaha howl, sidaasna waa ku kaydina. Okay, qaybta ku xigta waa calaamadaas setting menu. markaa klik ku siiso waxaa ku soo baxaya 5 badhan: setting, trash, density and color, print, get add-ons. waxaa ku raynayna settings. markaa furto waxaa ku soo baxaya settingka guud ahaan ee kalendarka oo dhan. Okay, mid kalendaradaada setting gooni way u leeyihiin, laakiin settingkan waa midka guud ee ka wada dhexeeya kalendarada oo dhan. Okay, luqadda iyo waddankaa joogto, dateka formatka u rabto, waxaasoo dhan meeshan ayaa laga bedela. timeka formatka u rabto, am pm yaa u rabtaa, waddankaa joogta saacadihiisa, wall clock, show. haddii aad rabto saacadaha maxaa lagu qiimeynaya kalendarka oo kale, hadda waxay igu xiran yihiin daqiiqado oo hal saaca oo 60 daqiiqo. haddii aad rabto 30 daqiiqo waa ka dhigi kartaa. Okay, qaybtan waa Google Meet. haddii waa software kale oo maaragtay online video conference lagu sameeyo. haddii aad ka samaysto event, kalendarkaagana markaas way kasoo muuqanaysaa. notifications in maaragtay ku soo loo siiyo maaragtay fariimo maaragtay ama dhawaaq wax kuu soo dhaco inta eventiga oo dhicin ka hor, meeshaas ay ka dooran kartaa. off waa dhigi kartaa, waxba yaa lii sheegin aniga mas-uulka ah, ama ha lii soo sheego oo daqiiqado waa ku xiran kartaa markaas. sidoo kale options sida u arkaysid show weekends, aan hadda way iga maqan tahay, waxaa arkaa kaliya isniin ilaa iyo jimco. show weekends hadda dhaho kalendarka ilaa iyo sabti axada liigu soo darayaa, ma u baahni. haddii aad rabto oo sabti axad aad shaqeyso ama waxyaaba qaar oo aad rabto inaad plan garayso waa ka dooran kartaa. Okay, event
mujeda display short events size 30 minutes events haddii aad rabto eventyada 30 daqiiqo ka yar in lagu tuso waa dooran kartaa. dabcan waa loo baahan yahay setka custom view 4 maalmood ma rabtaa in uu kalendarkaada ku tuso ama 5 maalmood 6 maalmood 7 maalmood 7 maalmood nooga dhig. wiigaada muxuu ka bilowdaa monday miyuu ka bilowdaa mise saturday haddii aad joogto wadamada islaamka kale ama wadamada africa soomaaliya kale saturday ayaa ka bilaaban kartaa. okay hadda iguda 4 maalmood oo monday ka bilaabanaya. okay waa intaas waa inta ugu muhiimsanayd. qaybtan hoosena zoom ayaa igu xiran. okay ma u baahnid waa advanced qaybo kale ka duwan. okay intaas waxay ahayd setting waxyaaba ugu muhiimsan. okay wax kale ugu baahantaa malaha. kadib back ay taabanayna. hadda usoo laabano trash fiirso waxyaabaha tuurnay eventyaal haddii ay jireen oo markaas naga dhamaado waqtigooda meeshas ayay maaragtay trashka ay kasoo laabanayn. haddii aad rabo event aad tuuray tusaalahaan ma youtube wax ku jira event aad tuura ma jirto. alibashi eventyaal badan ama waxyaaba badan ayaa tuuray. haddii aad rabo inaad soo ceshto waa calaamadeynaya. kadib waxaa taabanaya restore kusoo celi pagekeyga restore uu kusoo laabanaya calendarkeyga. okay haddii maaragtay aad rabto inaad sii tuurto oo aad markaas u baahnayn waa dooranaysaa. kadib halkaas ka tuur ama dhinacan ka tuur waa isku mid. okay delete ayaad isku noqonaysaa ama trash empty trash waxa qashinka igu jiro dhan iga tuur waa dhihi kartaa. okay ma fiicna inaad tuurto haddii aadan hubin. markaa hubto ayaa waxa dhan la iska tuuraa. okay waa badanaa waa iska daystaa. waxaa laga yaabaa inaad usoo baahdo mar kale culeysna ma igu haya meelna iga buuxinayn ma lahan sidaad ay ku daynaya marka. okay waxaa usoo laabanaya markaan display and color siduu kuga muuqdo colorka. okay modern ayuu hadda ii joogaa. haddii aad rabto waxaa ka dhigan kartaa classic text oo fiirso u muuqdo hadda waa sidii hore oo noocyadii laga soo tagay modern text waa kuwa ugu dambeeyay hadda. responsive ayuu joogaa. responsivena wax kale ma ahan waa in maaragtay screenkaada hadduu weyn yahay ama uu yaryahay in maaragtay uu ku fariisto oo cabir sax ah markaas hesho. compact farta waa la yaryareeyey. responsive farta waa lagu weynayna markaas. kadib done. qaybta ugu dambeysay ama print markaa tagno kalendarkaaga haddii aad rabto inaad qof la wadaagto ama shirkadaada inaa maaragtay shirkadda kalendarkeeda inaad soo printaysto ama qof kale pagekiisa soo printaysto si aad maaragtay kalendarkaaga ugu fiiriso ama isku barbar dhigto printiga ayaa isticmaali kartaa. okay hadda cancel naga dheh. qaybtaasna waxay ahayd print. get add-ons waa qayb kale advanced ma u baahan inaan usii gudbino. waxaa tegaynaa qaybtan kale week. okay haddii aad raba hal maalin tusaalahaan maanta 18 haddii aad rabo inaan fiiriyo howlaha yaal maalinkaas oo keliya ayaa fiirinaya markaas. okay mid kala joogo markaas ama calaamadan guduudan ayaa ku sheegaysa waqtiga markaas la joogo. haddii aad rabo week ahaan waa fiirin karaa. okay haddii aad rabo waxaa fiirin karaa month bishoo dhan waxaa isku dhacaya waa fiirin karaa ama sanadkoo dhan howlaha yaal. okay maalinkaa waa dooran kartaa. haddii lagu dhaho ramadaanka dambe ama samarka dambe wuxuu soo dhici doonaa taariikhdaas. iskuullada waxaa la xiri doonaa tusaale ahaan christmaska ama waqtiyada xaflada gaalada 16 December ku egyahay. waxaa isku dhacay meeshaas ay ka arki kartaa. haddii aad rabto inaad calendar cusub geliso ama event double click ayaa ku siinaysaa. maalinkaas ayaa marka ka dooranaysaa marka double click event cusub marka gelin kartaa. okay saas maaragtay waa ugu dooran kartaa sanadka haddii aad rabto inaad event cusub geliso. okay haddii kale waxaad samayn kartaa schedule ii fiiri ayaa leedahay bishan waxaa isku dhacaya. today nagey maantoo kale today waxaasoo dhan ayaa isku dhacaya. beri waxaas ayaa dhacaya waxaas ii yaalo saan waa u fiirin kartaa sida schedule. okay 4 maalmood itus haddaan rabaa dhihi karaa oo waxaa laga bilaabaa arbaco. 4 maalin waxay ku xiran tahay maalinkaad joogto iyo 3 maalin ku xigta. alright intaasna waxay ahayd maaragtay qaybtan sare ee maaragtay google calendar. qaybtan sagaalkaas dhibac dul saaran waa qaybihii kale appyaashii kale ama softwareadii kale ee google inoo soo diyaarisay. qaybtaasna adiga ayaa ku muuqda qof markaas login ku ah. qaybahan kale ma usii gudbi doono sida zoom maps iyo keep waxyaabahaas oo dhan mar kale ayaa video ka samayn doonaa. videogeena maanta aan kusoo qaadanay sida loo isticmaalo google calendar intaas ayaa kusoo koobana insha allahu. haddii ay jiraan wax talo iyo su-aal iyo soo jeedin markasta ilowin inaad comment inoogu soo qorto.
waxaan idiin soo diyaariy anigoo walaalkiin cali maxamed ismaaciil baashi. Haddii ay jiraan fiidiyoyaal kale ay jeclaan lahayd inaan idiin soo sameyno, fadlan nala soo wadaag. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.